waxaan leenahay go'aanka kama dambayska bari gaaraysid waa inaad mid ka fiirsatay oo ka soo noqosho aan lahayn dadka Soomaaliyeed ay ku qancaan ama hal la toogto ama la sii daayo waa hadii loo fiiriyo dhan hadii loo fiiriyo gumniinka ka dambeeyay dab waay dabka ayaa keenay ninkaas keenay sababta asigana waa cadeystay inuu dabku uu keenay gabadhina ay dabkaas dartiis ay u dhimatay naba go'aanka kama dambayska ay gaari doonaan reer Muqdisho qaasatan Soomaali dhan anfaca go'aanka uu soo gaarayo maxkamadda ay ku xiran tahay maanta qaaliga ay waqti haadirkaas xukunka fulinayo maxkamadda sare ee dalka ayaa ugu dambeyntii go'aan cad ka soo saartay kiiska eedeysan Said Cali Macalin Daawud oo ku eedeysan in uu dilay xaaskiisa Allah u naxariistay Luul Cabdulcasiis horaantii sanadkan maxkamadda sare ayaana ugu yeertay ama u sheegtay ehelada cid ay qusayso kiiskaasi in maalinta birta ah go'aan cad laga gaari doono walibana ehelada u sheegay inay maxkamadda ay soo xaadiraan maalinta birta ah maxkamadda ayaana sheegtay in kiiska Said Cali oo muddo soo jiitamay in maalinta birta ah la soo gabagabeyn doono walibana go'aan cad ah laga soo saari doono kiiska Said Cali kiiska Said Cali oo ahaa kiiskii ugu muddada dheeraa kiisaska soo mara maxkamadaha dalka ayaa laba jeer oo hore uu soo maray maxkamadda gobolka Banaadir iyo mid racfaanka hore ugu soo xukuntay dil toogasho walibana fadhi hore ugu yeelatay maxkamadda sare ee dalka haatanna maalinta birta oo ku beegan 18-ka bisha 9aad oo maalinta Arbacada oo bilaa ay go'aan cad ay ka soo saari doonto haddaba qaar ka tirsan shacabka Muqdisho oo aragtidooda la wadaagnay kiiska Said Cali wiliba go'aanka birta ee maxkamadda sare ee dalka uu noqon doono ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay wallahi horta ma sha Allah waa arin aad iyo aad dadweynaha ay u sugayaan ay qeyradoodana aad u kacsan tahay haddaan ahay shacabka Soomaaliyeed qaasatan reer Muqdisho haddaan ahay waxaan leenahay cadaaladda mar walba ha shaqeyso in cadaalad ay helaan dadkii gabadha ka dhinteen ama ninka toogashada lagu xukumay hadduu asay naftigiisa aysan ahaan dilaa aysan ahaan in ilgaar lagu fiiriyo haddii kalena ma sharciga islaamka sida uu qabo in la mariyo wuxuu qalmana ay waqti haadirkaas maxkamadda ay ku dhawaaqi doonto sidaas rajaynayna waxaan ka rajaynaynaa maxkamadda Soomaaliya ay maanta ugu weyn ay tahay Soomaaliya maadaama lagu xukumo dawladda ugu weyn ay Soomaaliya ay tahay qaasatan maxkamadda ugu weyn tii ugu sareysay haddana ay marayso waxaan sugnaaba go'aanka kama dambayska ay gaari doonaan reer Muqdisho qaasatan Soomaali dhan anfaca go'aanka uu soo gaarayo maxkamadda ay ku xiran tahay maanta qaaliga ay waqti haadirkaas xukunka fulinayo waxaan rajaynaynaa guusha ugu wanaagsan inuu gaaro ama xuquuqda Soomaaliyeed asoona u fiirinayna dhar hadan ilaahay asoo u fiirinay ninkan waa hadii loo fiiriyo dhan hadii loo fiiriyo gumniinka ka dambeeyay dab waay dabka ayaa keenay ninkaas keenay sababta asigana waa cadeystay inuu dabku uu keenay gabadhina ay dabkaas dartiis ay u dhimatay wallahi Said Cali Macalin Daawud kiiskaas ugu wadahay in ka gabiyo ku fiican tahay ninkaas waa nixaaskiisa ugu waayay ninkaas in la dirmo la raskaribay maxkamad aad u dahday maxkamaddu waxaan ka codsanaa inay dedejiso ninkaas wuxuu u xiran yahay waa qalad Said Cali Macalin Daawud waa nin oo dilay xaaskiisa والله كو اسكو دا ما أهان سيد عاد مع داود نكاس إنه نكتيسو جوي وحعدينا أيو درس كويس شيء كوري سبتالله والله تجي حق بدنا لوبي نكان أنا حاسبي كرا نكاس بحلوه استو دلتو وشاء ونكاس أدلو حكمه أهبون والله بقول بري لقيا أنا ذلك كو قلاص عبسي إنه كذا عليا وكوري كور محكمة هروح وشكتي لو دلتو وشهر ودهذي دلتو وشهر ده ببند بري أديله دو دلتو وشهر أديله دو وحنا كعبسنا إنه كو قلقل إنه ذلك كذا يكرو سياسات والله وعنصو محكمة هاد علنا كور إنه سوق جبيسو سيد علي معلم داود وصو أفجرته مركز عدالة سوينا أنا ك هوا محكمة دي لتقوى عدالة وحلو كلام حيوان. مركز أهل اللول محاو قدام بنتي أكو خلعي كلام بيرمي بقولانك إنه خن كرتام. والله أكو أنكاس أو ديلو شوى وحكي لما هذا نكاس إلا ديلو وحبون واي ونحس كسجو ونحرس ميال مش. وحاو باقي يا إن الصبران أو كل صبران نكاس بري إن شاء الله محكمة وحاو باقي نكاس إن سوء أفجران. كيس كان أصوب بالعودة هرانتي سنة كان أيال لجوه ذا إن مالنت بريتال السوق جبيه بس لما وجا وحو جوان كان نقول دونه جوان كوجودن بيه محكمة السرية ضلك إيك جاري دونتا كيس كان إذا سنة سيد علي أو لجوسه إذا إنه دليل ولي بنورشي وكوجبي
xaaskiisa Allah u naxariistay luul cabdulcasiis oo ugu dambeyntii ku geeriyootay dhaawaci ka soo gaaray gubashadaasi Axmed Deeq Yuusuf Somali Live TV Muqdisho